gudoomiyaha cusub ee magaalada Ceeldibir ee gobolka Mudug Mahdi Maxamed Shirdoon Mahdi Seefle ayaa maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Gudoomiyaha ayaa waxa garoonka diyaaradaha Oshaaka si weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug kan degmada Gaalkacyo maamulka Ceeldibir iyo xubno ka socday bulshada qaybooda kala duwan kuwaas oo ay qayb ka ahaayeen shacabka magaalada Ceeldibir oo iyagu u soo safray soo dhaweynta gudoomiyahooda cusub. Madasha soo dhaweynta ayaa waxa laga dareemayay soo dhaweyn qiimo badan isla markaana loo muujinayay gudoomiyaha cusub ee magaalada Ceeldibir Mahdi Maxamed Shirdoon Mahdi Seefle. agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo Daahir Maxamuud Cilmi iyo mas'uuliyiin kale ayaana ka hadlay madasha lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha magaalada Ceeldibir. sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka iyo bulshada magaalada Gaalkacyo oo iyagu qayb ka ahaa soo dhaweynta loo sameeyay gudoomiyaha magaalada Ceeldibir ayaa bogaadiyay iyagoo sheegay inay ugu hambalyeynayaan xilkan loo igmaday ayna rajeynayaan inuu حقيقة waxay ka turjumaysaa ayaantan dambe reer Ceeldibir iyo reer Gaalkacyo sibay faras kugu hayaan waxa is leeyahay reer Ceeldibir teamka ka yimid aad ay noo saameeyeen waxaana ka dareemaysaa bulshada meeshan timid hoggaankeeda ugu muhiimsan dhammaan waxay ka soo jeedaan Ceeldibir aad iyo aad kaga mahadcelinaynaa inaan maanta nagu soo biirtay kuna soo dhawaatay magaaladaadii iyo deegaankaaga dadkaagii intaani waa sama jeclihii iyo reer Gaalkacyo maamulkeedii iyo shacabkeedii asxaabteeda isku jidha waxaana kugu soo dhaweynayaan si kalsooni ah oo nabad ah ina ka qayb qaadan doontid nabadda iyo xasiloonida iyo wadajirka gobolka Mudug laga rabo gudoomiyaasha dhalinyarada ee firfircoon oo ku soo biiraya degmooyinka Galmudugna waxaanu ka rabnaa insha Allah inay wax ku soo saameyn ku yeeshaan waan rajaynaynaa si gooni ah u xusnay marka aad u maasantii gudoomiyaha Mahdi ku soo dhawow gobolkaagi meel laga jecel yahay maanta qoraxda lagu taagnaa ilaa saakay bay dadkaan taagnaayeen iyo maamul dhamaanteen ku soo dhawow waxaan filayaa maanta kulliga wada Ceeldibireysannahay dhamaanteen waana waxa keenaya meesha Ceeldibir waxay leedahay xamaasad gaar ah ay leedahay waa meel aad iyo aad u xadaarad dheer marka gudoomiye waa wadankaagi in badan ba laga sugayay waa kugu soo dhaweynaynaa ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaan iyo maamulkana afka ku hadlaya afka maamulka gobolka Mudug dhamaan ku soo dhawow ku hadlaya afka odayaasha dhaqanka gobolka Mudug Gaalkacyo aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa gobolka Gaalkacyo ku soo dhawow degmada Ceeldibir oo qadiimiga ku soo dhawow sidaad ogtihiin ba Mahdi Seefle waxa loo magacaabay gudoomiyaha degmada Ceeldibir oo qadiimiga waxa magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariye Qorqor iyo golihiisa annaguna kalsoonida waa siin hadaan odayaasha dhaqanka Mahdi oo ku soo dhawow degmada Ceeldibir oo qadiimiga ku soo dhawow gudoomiyaasha gobolka Gaalkacyo degmooyinka hoose baanahaya aad iyo aad baad u mahadsantahay magaca waxa leeyahay ama sabab weeye ama sahay weeye sahaydaadaan haynaa sababtaada ma hayno nin aqoon leh oo diin leh oo maadi laha tahay degmada Ceeldibirna waxaan rajaynayaa inaad mashaariic iyo dhaqaale iyo isbedel ayadoo awalba horumarsanay inaad horumarka sii balaarin doontid aad iyo aad baa u mahadsantahay gudoomiye soo dhawow degmadii gobolka Mudug hooyadii gobolka Mudug ku soo dhawow waxaan u malaynayaa qof kasta oo degmo u socda ama tuulo u socda wuxuu soo maraa hooyada gobolka Mudug waa kugu soo dhaweynaynaa waxaan rajaynayaa filasho fiican baa laga qabaa bulshada halkaan iskugu timid waxayna wilaysaa wax ka maqan ama ka maqnaa waxaan u malaynayaa inaad buuxin doonti booskoodaas aad iyo aad degmada la yiraahdo Ceeldibir waxaan u malaynayaa ku dhawaaqitaan degmo wili ma soo gaarin waxaan rabnaa fariinta halkaan inaan u marino madaxweynaha Galmudug degmadii ku dhawaaqitaankeedii ha laga helo dadkaani degmo u aqoonsan yihiin waa degmada kaliya ee arrimaha bulshada adeega arrimaha bulshada laga helo gudoomiyaha degmada Ceeldibir Mahdi Maxamed Shirdoon Mahdi Seefle waxa lana gudoomiye ku soo dhawow degmada Gaalkacyo runtii waxaan moodaa dadku inay xamaasad gooni ay qaadayso soo dhaweyntaada ay u taagnaayeen muddo badan waxaan rajaynayaa gudoomiye inaan Ceeldibir kugu soo dhaweey doono mar labaad hadii Ilaahay idmo ugu dambeyn gudoomiyaha magaalada Ceeldibir Mahdi Maxamed Shirdoon ayaa uga mahad celiyay shacabka reer Gaalkacyo iyo dadka reer Ceeldibir sida diiran ay ugu soo dhaweeyeen
garoonka diyaaradaha Oshaaka isagoona sheegay in tani ay keenayso kalsooni uu bulshada ugu adeego. waxaan inaga mahad celinayaa socdaalka aad soo dhaweynteeda aad soo geliseen juhdiga soo geliseen ayaa inaga mahad celinayaa mahad celin kadib ilaah baa mahad iska leh waxaan halkan fursadan uga faa'iideysanayaa aan u mahad celinayaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo mas'uuliyadan culus ii dhiibay ilaahayna waxa ka rajeenayaa inay ila garab galo ka arrimaha gudaha mudana waayeel si gaar ah ayaan uga mahad celinaa haddana reer Ceeldibir warbixinteena hore u gudbiyay haddaarna anoo reer Ceeldibir matalayo ayuu soo magacaabay madaxweynaha amarkiisa iyo dadka shacabka amarkooda ayuu dhageystay waanu fuliyay cabashadooda iyo tixgelintooda marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo.